شيخنا الحسن المخير دين الله شيخنا جزاه الله من أهلك نعدانا وخرب ديارهم يا الله شيخنا جزاه الله روني يصح بمدحه دل ما يقاتله والله بسم الله الرحمن الرحيم عصر حداد إلى باتك فكراي ربض كنت بني تضبط وعهيكم بوحد وحجرا كغيب قاد شد بنابح مناسبة عالمي أهي سيارة تضبط يقود بقي وينا شهيد في قرآن كي سنة النبي عليه الصلاة والسلام جيسي الإسلام كي خرنقان الشهيد شيخ حسن شيخ عبدي شيخ حسن قريولي وقلبت كده عيسى مقالة علم أي تصوف مكين الرود عريق كينيا xarunta dhexe ee maxamuudiya suuf islamic center ayaa iminka laga dhaqaaqay waxaana loo jeestay dhinaca xarunta weyn ee xadratul baraka oo dariiq shahiidku uu ku yaalo sida caadada ahna ay siyaaradu ka dhacdo allah naga aqbalay ka bogasho wacan بمدحه دل ما يقاتله والله شيخنا جزاه الله ربنا ارحم شيخ حسن الهدى واحبابه معه في الله في مكين ما ودرق الله سلام على شيخ الورى يسمى كسبد رسول الله شرف لد الله قدر موشخنا شهيد شيل الله صائم صارم لهم لأعداء الله وهو ضياء على عرضي ضيفكم حاشا لا يضام الله وبغوثنا وإمامنا بجمال ثاني شهر الله فريد فاهم فضله كمثل بحر الله
فبذلك فليفرحوا خير قال له تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم فليعمل العاملون قال له تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجة
لا نكون
بسم الله الرحمن الرحيم داوديال dhageystayaal iminka iyo haatanna ku soo dhawaada qodbadii aad wada sugayseen ee gunaanadkii iyo qatinkii ziyaarada sanadkan waa qodbadii taariikhiga ahayd ee Sheikhul Islaam Sayyiduna wa Ustaaduna wa Murabbina As-Sayyid Al-Aarif Billah Aba Sheikh Maxamuud Nuur bin Abdirahmaan bin Yuusuf xafidahullahu ta'ala barakadiisa iyo culumtiisana Allah nagu wada anface ka bogasho wacan walaalayaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على جميع نعمه وإفضاله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وسفيه وخيرته من خلقه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما تحب وترضى يا رب العالمين وكما أنت له أهل في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك صلاة وبركة دائمين بدوامك باقيين ببقائك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى سيد الشيخ الكامل الإمام الشهيد ولي الله شيخنا الشيخ حسن بن عبدي القريولي أما بعد سادة الكرام وإخوة الأعزاء waxaan joognaa khatinkii iyo gabagabadii ziyaaradii sheekheennii weynaa sheekhana sheekh xasan sheekh cabdi sheekh xasan qoryooley waliyillaahi alkaamil bilaa nisaac alxamdu lilaahi ziyaarada nicmada iyo wanaagga noogu bilaabatay iyo sida ilaahay noogu khatimay ilaah baan ugu xamdinaynaa subxaana wa tacaala ziyaaraadka saalixiinta iyo ijtimaaca iyo dikriga ilaahay waxyaalo waaweyn oo aad u fadli badan baa laga helaa qoraxdaas la taagan yahay ilaahay tawxiidkiisa la akhrinayo nicmada ku jirtay waxa laga helaayo maanta maalin aan ahayn baa la garan doonaa maalin ay nafta aad u dhibaato badan tahay aad cariiri ugu jirto hal xasanaad baahi ay u qabto sida qof ooman oo oon u dhiman raba sida biyaha ugu baahan yahay si ka daran maalin ay xasanaadka ugu baahan tahay ayuu arki doonaa nicmadan weyninkeeda qofkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka aqbalo ilaahay waafajiyo الله نجا أقبله سيدنا أحمد بن إدريس رضي الله عنه وأرضاه سيد الأولياء وحجري لا يعرف أحدكم مقدار طريقتي قفكين مقرنا يو طريقة المقدار كذا يقيمه هذا مقرن كرو إلا مركي أي رجع أي إنديه سلابان ما هني انتو سكرات الموت يماذا نفط مركي لا يقاذا ميت كأنها صلابة اللي يراهذا markaasuu garanayaa dariiqadeeda miqdaarkeeda iyo qiimaheeda iyo sharafkeeda marka sidaas oo kale dariiqooyinka awliyo oo dhan iyo mashaayikhda dariiqadooda ilaahay ku xiran sidaas oo kale weeye qiimaheeda runta waxaa la gartaa markii qofka sakaraatumoodkii iyo dhimashada u timaado iyo wixii ka dambeeyo marka nicmada marka maanta tawxiidkan iyo nicmada waa wax qof walba oo shaqaystay asaga u yaala nicmo asaga ka horeysa adduunka akhir ku liibaanayo waa nicmo weyn ilaahay lagu xamdiyo lagu shukri u baahan meesha dadka qaarkood hooska iyo harka qabow ay markaas milicsanayaan oo markaas ay nafta fiirinayaan raaxadeeda hadda dhow waxaa ka qaalisan oo ka qiimo badan dadka fiiriya raaxada dambe ee daa'imka ahaanaysa ee ilaahay dartii qoraxda u taagan إلهي ذكري سؤتاجن سبحانه وتعالى زيارة أولي أتاجن أحبابت إلهي تعظيمين تودي حرمة أتاجن مركز الحمد لله رب العالمين شاقنا شيخ حسن قريولي مشايخ لما أهيد زيارة أولي نولين جرتي أيجنا إلنا زيارتها إلهي أدونكم كرامة سبحانه وتعالى واحد بدن بالأوجادي مشايخ فر بدن أو عالمين أو أهل العلم باجري ومع ذلك markay xijaabteen wax ziyaarnaayay wax karaameynay aan la arkin aad bay u fara badan yihiin waxaan goob joog ahayn mashaayikh dhahay
dadka ay boonboonayeen firqooyinka ay boonbooniyeen ay dhahayeen waa fanni hebel sheekha ugu caalimsan Soomaaliya maanta laba qof oo ziyaarad isugu imaanaysa ma laha dariiqi saalixiintii awli ilaahi ma uusan marin in awli ilaahi la ziyaarto la karaameeyo manhajkaas kama shaqaynin bal waxaan aragnaa mashaayikh caalimiin oo cilmigooda la yaabay oo tabliiqa iyo majmac iyo islaax iyo bidcada la saaxiibay aakhirka ay duugeen maalintii la duugay qabr la dhigay ugu dambeysay wax dam isugu yimaada la waayay cilmigiis meel ka baxay ma yaqaano diin naafica ma aha khasaare iyo maal xun iyo ku ciraan xum lagu dambeeyay dariiqan fiican dad ka shaqeeya ahlu xaq ah ee ilaa nabiga maxamed soo taxna calayhi salaatu wasalaam caqiido suuban ee toosan manhaj sax ah diinta lagu qaato dariiqi saalixiinta la maro ee sheekhan shaxsan qoryooli uu ku tagay ee ku xijaabtay waa la mahdiin nicmadiisa adduunka aakhir waa la arkay marka ugu horeysa waxa asal ah qofka caqiido fiican uu leeyahay haddii caqiidada qofka ay ka halowdo oo caqiidatu ahlu sunna wal jamaa ma calayhi saxaabatu haddii uu garab maro waxba lagama aqbalayo maqaam ma gaaraayo walaa ma gaaraayo darajo ma gaaraayo bal jannada ilaahay ma helaayo nabiga noo cadiyay calayhi salaatu wasalaam man axdatha fiiha xadathan aw aawaa muxdithan facalayhi lacnatullaahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin qofkii diinta wax ku soo bidceeyo ama ruux bidci ah soo dhoweeyo ama saaxiib la noqdo ama duma labadoodaas ba lacnadii ilaahay iyo lacnadii malaa'igta iyo lacnadii dadka dhan baa ku soconaysa oo dushooda ahaatay laa yaqbalu llah ilaahay kama aqbalaayo minhu bidciga iyo midka bidciga u kaalmay soo dhoweeya sarfan walaa cadlan sunno iyo farad midna lagama aqbalaayo sadaqa sunno ah sadaqa farad ah salaad sunno ah salaad farad ah soon sunno ah soon farad ah xaj sunno ah xaj farad ah wax laga aqbalaya ma leh asagoo sujuudsan bay lacnada ilaahay ku da'aysaa ku socotaa asagoo qur-aanka akhrinaya lacnada ilaahay ku socotaa lacnatullah calayhi ay ku dhacaysaa maxaa sababay diintu bidcanimo iyo baraayo ku daray caqiido faasid buu qaatay dariiqii saalixiintii ahlullaahi iyo nebigu ka leexday calayhi salaatu wasalaam marka caqiidadan qaaliga waa inaan ilaashanno waa inaan ku dheganaanno waa in bidcada aynaan la saaxiibin la soo dhoweynin waa in meelahooda iyo masaajidadooda iyo xarumahooda aan la tegin waa mamnuuc xaaraam weeye sheekh fadal ibnu ciyaad wuxuu yidhi radiallahu canhu ardaa wuxuu yidhi lian ajlisa maca yahuudiyin aw nasaariin axabu ilaya min an ajlisa ilaa mubtadiciin in aan la fariisto yahuud ama nasaaro kristaan ah inaan la fariistaa yaan ka jeclahay inaan ruux bidci ah la fariisto waxa dhahay waa akaabirtii taabiciinta cilmi xadiidkii laga qaadanayay bukhaari iyo muslimka raggii axaadiid ka soo qaadeen raggii ka mid ahaa saasay dhahayeen bal asxaabtaa dhahaysay cabdillaahi ibni cumar maxaa yidhi markii loo sheegay bidcadii soo baxda qadarida muxuu yidhi idaa laqiitu waaxida minhum haddii mid ka mid a aad la kulanto fa akhbirhum annii barii'un minhum inaan beri ka ahay u sheeg ayagana ay beri iga yihiin u sheeg cabdillaahi ibni cumar yaa soo baray cilmiga nebigana maxamed calayhi salaatu wasalaam in bidcada laga bari noqdo aan lala saaxiibin la soo dhowaysan xaruntooda la tegin la salaamin salaanta aan laga radinin nabigaa bari asxaabta calayhi salaatu wasalaam waxa bidcada faafiyey ee saan buu muri waxa ka mid ah waa la salaamayaa salaantii baa laga qaadayaa qaraabaa laga dhiganayaa waa la soo dhowaynayaa waa wax lacnad ilaahay musiibo ka imaanaysa wey marka waa in caqiidada fiican la ilaashado dariiqa ahlu xaqa la ilaashado kadib baa marka cibaadadii iyo taqwadii iyo mujaahadadii iyo khayrkii wax taraysaa saalixiinta ilaa lagu xirnaado la jeclaado maxay ka mid tahay nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofuu jecelyahu micigiisa ahaanaya almaru maca man axabba dariiquu ku dhinto iyo qoladii jecelka uu ku dhinto micigooda ahaanaya marka waxyaalaha ilaahay abaalgud ku bixi maxaa ka mid a u fiirso waman yudici illaaha waarasuula qofkii ilaahay adeeca oo rasuulka adeeca calayhi salaatu wasalaam ee toosnaada ilaahay muxuu yidhi maxaan jaza uga dhigayaa فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أبا القدك وين كان لسي محاوي وحو معقود أهاني النبياشي الصديقين تي الشهداء دي أولي دي أحبابتي إلهي صالحين تي يا معقود أنك لقينا وابالدرج وين أو إلهي أبحيواي إن كواس معقود الله هذا دريق ذو الله جعل هذا أيوة الله تعظيم يو زيارة الله نولا يو وحاد وين marka adduunka micigooda ahaato oo jeclaato waxay calaamo u tahay si nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhirana micigooda ahaanayso almar'u maca man ahabba xadiidka saxiixa awey
marka dariiqaas aan ku noolaano aan ku dhaganaano sida nabiga uu naga dardaarmay calayhi salaatu wasalaam sunnadayda wadadayda iyo sunnadii khulafaa raashidiintayda caddu calayha binnawaajidi goos dambaadkii ku qabsada oo hadda goos damba maxaa loo yiri gacmaha waxa lagu qabsado lugihii lagu daray ilkaha goosaha u dambe ay ku qabsato si laga fujiyo adagta inaad dhimato ilkaha laga daadiyo dib baramaha laga fujin karo marka waa ku dhinta oo ku jihaada aqiidaas fiican kummitida ilaa aad ku dhimataan barakallahu fiikum nicmo weyn iyo naxariis weyn baan helnay ilaahay baan waafajiyo ku xamdinaynaa dariiqaas aan ku noolaano asaga aan ku dhimano asaga insha Allah ilaahay nagu soo bixin rajaynaynaa sida ma artay diintana lagu bishaareeyay qof walba nicmada weyn iyo nasriga ilaahay iyo nicmada ilaahay uu ku xamdiyo ilaahay haddaad ku shukriso wuu ku ziyaadinayaa in khayrka lagu waafajiyo lagu soo celceliyo awood laguma heli karo lacag laguma heli karo xoog laguma heli karo dadka xoog iyo awoodi maal badan baan tawxiidka nicmadan aan soo waafaqaynin oo iimaan karin ka maal badan ka xoolo badan ka cilmi badan dariiq ilaahay lama waafajinayo ilaahay ku soo waafajiyay dhikri ilaahay dariiqada ilaahay dadka ilaahay la jeclaado marka ilaahay hadaa ugu shukrin oo noo ziyaadinaya ya rabbana lakal hamdu laka shukru ilaahay adaan kuugu shukran kuugu xamdinay nicmada allah noo ziyaadiyo sheekhan shaah saqriyo la izzi maqam taraqi kamal darajo ilaahay u ziyaadiyo maalinta qiyaamo dhibkii qoraxda la taagnaanayo kun sano biyo la cabaynin cunto la cunaynin kun sano la baahan yahay dhar aan la wadan kaba aan la wadan qoraxda la soo dhaweeyay meel dhow la keenay qoraxda meesha aragtay naga dhibaysa maalintaas ilaahay inuu nagu mootiyo istaagan dar ilaahay aanu istaagnay tawxiidka ilaahay aanu istaagnay dhikri ilaahay aanu istaagnay ilaahay jaceelkiisa aanu istaagnay maalintaas ilaahay inuu nagu gudbiyo oo aan raaxaysano arshi hooskiisa aan harsano dhib la'aan qorada madaxda martiqaadka ilaahay galaysa aan kamid ahaano yaan rajaynayna insha Allah ta'ala waan ku helayna hadii ilaahay yiraahdo Allah noo kaso Allah naga aqbalo barakallahu fiikum qorax baa la joogaa insha Allah waa la quraacanayaa quraacda markii la barakeeyo markaas baa la fasaxaya sida caadadu ahaan jirtay qof walba ajarkiisa iyo xasanaadkiisa iyo nicmadiisa la gadoomo hala siyaaxada hala noolaado Allah noo ilaaliyo waxaa la yiri karaamada iyo ajarka iyo xasanaadka waa la shaqayn karaa in la shaqeeyo way sahlan tahay qofka inuu quraan badan akhriyo wardi badan akhriyo tawxiid badan akhriyo khidmeeyo dhikriga ka qayb galo subaxa nooleeyo mawlidka nooleeyo karaamay anwaar u shaqaysto waa la shaqayn karaa laakiin waxa ka dhib badan sida lagu ilaalin lahaa yaa ka dhib badan haddaad qofkan cayso waa ka daadanaysaa qofkan haddaa xasado xasanaadkaaga sida dab xaaba dab lagu shido kale dabka suu yeelaa waa baabi'ina soo ma dabas ka dhigaa hal xaasidnimo kaliya ka baabi'inayso eber ka dhigayso حقد عقدات أقف وقاد إخوان كمية أمسمين كمية كبر الله تماد إسلوينين قف كبر الكجرو جنة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حبت عركير أو كبر قف كجرو جنة ما قال هذا واحد أركي ذلك قاركود حرش شجناي أما مريدين شجناي أو سعة في قارض عيال زيها وسعناي شافرت ما أما إسقاط قاضي أركي سبحان الملك القدوس فهو كبر ولا تمشي في الأرض مرحا dhulka kibir iyo iskibirha uu soconin ilaahay ka reebay shaafartan iyo kibir dhulka ku soconin gaalada oo kale ha u soconin munaafiqiinta bidcada kale ha u soconin ilaahay ka reebay subhanahu wa ta'ala kibirkaas intuu leeyahay xabad arraa kale miya waa ku weyn marka waa in la ilaashado karaamadii anwaartii wardiga xasanaadka cibaadada in la ilaashado weey waa in la dhowro ikhwaanka la karaameeyo qofka yar loo naxariisto ka weyn la ixtiraamo waalidka baari loo noqdo la caasin lagu madax adeegin lagu afcalinin qof waalidka isku afcaliyay oo waalidka caas ku noqday oo amar ka diiday waalidka wax ijaaba ma helay adduun aakhiro waalidka waxaad ku caasin kartaa wax ilaahay ka xarim haday ku faraan ama cilmiga diinta waajibka ana bartay ka celiyaan waa lagu khilaafi karaa laakiin wax kale kuma khilaafi kartid haddii salaad sunna ku dhaan ha tukanin ma tukan kartid khalaas adoo salaad sunna ku jirta ku yarto hooyada ama aabaha ku yaro waana salaad ka baxda salaad sunna u taaganta ilaahay hor taagantahay hooyada ku wacday sharciyadu waxay qabtaa inaad ka baxdo hadda caas ku noqdo salaad laga ma aqbalayo musiibo waay hadda caasi waalid baa loo batay macallinkii lagu afcilna la murma macallimiinta quraanka dhigaysay caasi waalidka u daran waay sheekha murabbiga oo qowlkiisa khilaafto waa mid ka sii daran caasinimo ka sii daran waay waa in laga taxadaro wix cibaadada naga hadlaynaayo amalka naga hadlaynaayo cuqubad degdeg cimr gaabi iyo khaatimo xume keenta waalidkii iyo mashaayikhdooda la caasiyo ikhwaanka la xasdo dadkoo la dhibo xertoo la dhibo aafad degdeg keenta waa in la iska ilaaliyo waa in makhluuqa la nabad geliyo xitaa gaalka dariska ah waa in la nabad geliyo shariicada nafartay barakallahu fiikum an ilaashan an dadaalno tawaadu cidabta aan ku dadaalno baarimada
الله نو إلى الله نو دوره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.